sheeg wax bir ka samaysan bini'aadamka cadaaladiisa ay ku qanacsan yihiin waa computer wax bir ka samaysan bir su'aal computer caag mu aha mis bir magaalada meed ka dhiman Hey, y'all, come look at this. magaalada meed ka dhiman dadka wada meed Soomaali السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنتم ونكسن إلى هل كان قدامنا سوا MCTV نوغو برتين حلدا عملنا هودي إنسو مرنا برنامج كي كدي سيو كافتن أن الله دحمر الدونا مقالة مندير ميكروفونك أن ولالك معكم صدوا MCTV واندويا أن هذا ما سنت هذا نوغو بلا مقعد مقعيد فرحان نور معلم أن سؤال كويدين ديار موتا ديار بون أن سؤال شو غور سؤال هيكون له هاي وان دير هاي وان قاب تامر كان جو هذا وانا كمان سؤال شاس way waadagta in aad u maasantay su'aasha labaad waa kaftan hadii aan kugu dar waxay ku leedahay sababta digaagada ay wadada u goys waa maxay digaag ama doorayda sida tu taqaanaba wadada weynta laamiga sababta ay u goys waa maxay waa hunguridoon aad u maasantay soo dhawaad halkay walaalkay maxaan ku soo dhawaay MCTV waan dhowahay adiga noogu bilaabay magacaaga magacayga aadan maxamed axmed inaan su'aal ku weydiino diyaar ma tahay haa diyaar baan u hay su'aasha koowaad waxay ku leedahay wax qol buuxin karo aan boos buuxin karin wax qol buuxin kara aan boos buuxin karin alla ilaahay qol waxaa buuxin kara labada nafood ee isku kalsoon ee weliba alle dartii nolol wadaaga markay qolkaa galaan way buuxin karaan ayagaaba isku kalsoonaad cid kale oo wehelin kartaa ma jirto ada fikir ahaanta waxay kula tahay labada qof oo nolosha mudawaan inay qolka buuxin karaan nacam su'aasha labaad waxay ku leedahay waa maxay waxa markaad u baahantahay tuurayso waxa markaan u baahanahay aan tuurayo alla ilaahay way iga maqan tahay laakiin waxaan markaan u baahanahay aan aad u doonayo yaan kuu sheegayaa dimala fikradaada waa muhiim inaad noo sheegto waxaan halkan u taaganahay waxaan aad ugu baahanahay jannada allah agtiisa taalla yaan aad u doonayaa aniga naftayda saddex baan jeclahay carabtaan jeclahay weliba da'yarta dumarka ee weliba aad u qurux badan baan jeclahay labiska aad u qurux badan baan jeclahay taqwada iyo salaadaan jeclahay aad u maasanta soo dhawow walaal maxaan ku soo dhawaay MCTV waa dhowahay brother adiga noogu bilaabay magacaaga magacii Cabdulbaasid Nuur Cali aad u maasanta inaan su'aal weydiiyo diyaar ma tahay diyaar soo dah su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay sheeg wax bir ka samaysan bini'aadamka cadaaladiisa ay ku qanacsan yihiin waa computer wax bir ka samaysan bir su'aal computer caag mu aha mis bir wax bir ka samaysan waa miisaan aad u maasan tahay su'aasha labaad waxay ku leedahay waxaad sheegtaa saddex eray oo markii lagu dhawaaqa isku xaraf ah markii hore laga akhriyo isku xaraf ah markii gadaal laga soo akhriyo isku xaraf ah oo haddana ku dhamaadaan d xarafka d waa ka bilowdaan d way ku dhamaadaan madam d ma ka bilowdaan هذا ما زنده واقف كعيل هالمر سواش كسعلي زواجك وعلنا حكي بلاواني واحد شيكتا سدح اري ومركي لا اخريه كبلاونا هل حرف ها حرف كاس دي كنا دمادان دي وداد سدح اري ان كويدني او سدح اري ها او كبلاودان دي كنا دمادان دي ما قانع ميا walaalkay macnado magaca noogu bilaabay ku soo dhawaay MCTV magacay Muxudiin waa ku dhow su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay wax qol buuxin karo aanan boos buuxin karin عملين سؤال شاذ وديك كوده عملين قرآن عملين هذا ما سنتي سؤال كلام كويدين كرا سؤال شان waxay ku leedahay waan dheerahay waan gaabtaa markaan gabo hadda waan ku maanahay wallahi tan waa igu adeegtay walaalkay maxaan ku soo dhawaay MCTV waa diyaar walaalkay maxaan adigoo nagu bilaabay magacaaga waa Xuseen Cabdullaahi Maxamed aad ma santay inaan su'aal ku weydiiyo diyaar ma tahay waa diyaar walaal su'aasha koowaad waxay ku leedahay wax qol buuxin karo oo boos buuxin karin waxa waay taas way maqan tahay walaal taas way ka maqan tahay su'aal labaad inaan kugu dar diyaar ma tahay waa diyaar su'aasha labaad waxay ku leedahay wax markaad u baahan tahay tuuraysid waa dhagax no walaalkay maxaan ku soo dhawaay MCTV adigoo nagu bilaabay magacaaga waa dhawaay bro magacayda Aamin Xaji Gacaan aad ma santay inaan su'aal ku weydiin diyaar ma tahay yaa boqolkiiba su'aasha ugu horeysa waxay ku leedahay waan dheerahay markaan yarahay waan gaabtaa markaan gabo hadda aan ku maanahay waa duqow waa yeel
aad u mahadsan tahay su'aasha labaad waxay ku leedahay waa maxay sababta digaagada ay wadada u goyso baalay qabtaa aad u mahadsan tahay soo dhaw walaalkay maxaa ku soo dhawaa MCTV waan dhawahay saaxiib adigoo nagu bilaabay magacaaga saadiq khaalid abra in aad u mahadsan tahay inaan su'aal ku weydiiyo diyaar ma tahay sax su'aasha koowaad waxay ku leedahay wax markaad u baahan tahay aad tuurayso wax markaa u baahan tahay aad tuuraysid Hey, y'all, come look at this. wax markaa u baahan aan tuurayo waxaan u baahan aan tuurayo ma walaal aad u mahadsan tahay su'aasha labaad inaan su'aal labaad ku weydiiyo diyaar ma tahay su'aasha labaad waxay ku leedahay xaraf wax ka bilowdana oo la cuno oona nanac ahayn xaraf nac ka bilowdo wax xarafka nac ka bilowdo oo la cuno oona nanac ahayn oo nanac ahayn naaga la cunaati aad u mahadsan tahay soo dhaw walaalkay maxaan ku soo dhawaa MCTV waan dhawahay adigoo magacaaga noogu bilaabay maxamed yuusuf cabdille in aad u mahadsan tahay inaan su'aal ku weydiin diyaar ma tahay su'aasha koowaad waxay ku leedahay waan dheerahay markaan yarahay waan gaabtaa markaan gabow haddaba ani kumaanahay waa shumaca aad u mahadsan tahay inaan su'aal kale kugu daro diyaar ma tahay aad u mahadsan tahay walaalkay maxaan ku soo dhawaa MCTV maasha allah waa dhawahay aad u mahadsan tahay adoo noogu bilaabay magacaaga magacayga saadiq shariif zubeer inaan su'aal ku weydiiyo diyaar ma tahay diyaar adkeen aan ka jawaabi karo waxa la isku xadaa jiray igu xadin laakiin aad u mahadsan tahay su'aasha koowaad waxay ku leedahay magaalo uusan meyd ka dhiman magaalo uusan meyd ka dhiman maba jirtaba isku day magaalo aan meyd aan ka dhimanina magaalo aan laga dhiman ma jiro adduunka dhan yow ma isku day aan ku yiri ilaa hadda isku day aan taaganahay ilaa hadda isku day tahay ay taas ka gudub mar aad u mahadsan tahay su'aasha labaad waxay ku leedahay waxaad u baahan tahay tuuraysid waxaan aniga u baahanahay aan tuuraya sometimes hambada soo harto waa cuntada aad u mahadsan tahay soo dhaw walaalkay maxaan ku soo dhawaa MCTV hayana diyaar adoo noogu bilaabay magacaaga shukri saa hajmad keer inaan su'aal ku weydiiyo diyaar ma tahay aad u mahadsan tahay su'aasha koowaad waxay ku leedahay wax qol buuxin karo oonan boos buuxin karin waana kasi sunini waana kasi wallahi imbew aad u mahadsan tahay walaalkay maxaan soo dhawo waxay ku leedahay waxaan ahay noole ukun ilmo toona ma foosh haddaba ani kumaanahay waana kasi sunini luku anin jira lukuni anin jira na dhali ukunti sun naraan goofnetta maanechu waanan nam dhiira su'aasha saddexaad waxay ku leedahay sababta ay doorada waddada u goys beel khab aad u mahadsan tahay soo dhaw walaalkay maxaan ku soo dhawaa MCTV waa dhawahay adigoo ku bilaabay magacaaga magacayga cabdirasaaq cali cabdullaahi aad u mahadsan tahay inaan su'aal ku weydiiyo diyaar ma tahay diyaar su'aasha koowaad waxay ku leedahay waxaan ahay noole ukun ilmo toona ma foosh haddaba ani kumaanahay igu celi waxaan ahay noole ukun ilmo toona ma foosh haddaba ani kumaanahay taa igu adag aad u mahadsan tahay su'aasha labaad waxay ku leedahay magaalo uusan meyd ka dhiman Hey, y'all, come look at this. magaalo aan meyd ka dhiman dadka magaalo aan meyd ka dhiman dadkaa wada meyd soo maaha dadkaa wada meyd hadda dhammaanteen wada socono waxaan ahay meyd magaalo aan meyd ka dhimanna magaalo uusan meyd ka dhiman wala garayo abana walaalkay waxaan aad u mahadsan tahay soo dhawo